ahaa safar dulucdiisu ahayd in telefishanka Home Cable uu si mugla u soo bandhigo taariikhda khayraadka dabiiciga ah iyo wax soo saarka iyo baahiyaha kala duwan ee ka jira degmada Saylac oo ka mid ah goobaha ugu taariikhda fog Geeska Afrika waxaana la degay taariikh lagu qiyaaso kumanaan sanadood ka hor haddaba barnaamijkani oo aan ugu magac darnay bandhiga iyo baahiyaha Saylac taasi oo aan uga jeednay inaanu ku soo aragno waxyaabaha ay ku faanaan dadka deegaankaasi Soomaalida kalena ay ku dhaataan iyo baahida ay qabaan dadka reer Saylac magaalada Saylac iyo magaalada Hargeysa waxay isu jiraan in ka badan 360 kilomitir waana jid rafa waxaana halkaasi gaari kara gaadiid awood leh oo kaliya adigoo ku xisaabtamaya buuraha waaweyn iyo dhulka kala duwan ee u dhaxeeya labadaasi magaalo markastoo aad ku sii dhawaato magaalada Saylac waxaad arkaysaa dhul kala duwan magaalada Saylac waxaa jira dhul cajiib ah oo ku wareegsan degmada waxaana ka mid ah deegaanka loo yaqaan laba dhagadka oo ah biyo fadhiisin aad u ballaaran kaas oo ku fadhiya dhul baaxadiisu ay gaarayso ilaa 50 kilomitir halkaas oo gaadiidku ay dhex maraan marka ay qalasho waxaana lagu tilmaami karaa haro ama biyo fadhiisin weyn oo aad looga warqabin Mustafa Abdullahi waxa uu inooga warbixinayaa deegaankani biyo fadhiisinka ballaarana isla markaasina ay isugu timi carradii iyo nafaqadii dhulka oogada ah waa laba dhagadkii dooxyada ka geerisa ka yimaada mid ka yimaada soo mara meesha la yiraahdo gariyaadka adoo dhowr doox baa ku afko ah labada koono waxay ku leedahay xagga lugayada loo doox baa ka gala halkan hore meel aan cawaalan la yiraahdo doox baa ka gala biyihii kale inta xagga ma fadhiisanaya halkan ma fadhiistaan saddex bilood ciidamo marto wixii soo marna wixii geel iyo lo iyo ari iyo baabuur toona ma maro maradii halkan roobka biyo xoog la weeyaan biyo xoog la fadhiista meesha biyihii badda geli lahaa ayaa halkan fadhiista oo waa iska faa'iido sameeyaan ma jirto waxba laguma beerto wax cabitaankana jambay leedahay meesha jambay ta qaraar bay noqonayaan biyaha soo fadhiista biyaha fadhiistaan isla markaa way isbedelayaan carradan markaa maadaama ay tahay carradiina oogadi ka timid sidee baa looga faa'iideysan karaa wax wali beerasho ku dii haba yaraatee ma jirto dadku transit-kaas bay ku wada yaacaan Saylac waxaa soo maray boqortooyooyin kala duwan oo ay ka mid ahaayeen boqortooyadii Awdal boqortooyadii Ifaad boqortooyadii Cismaaniyiinta iyo boqortooyadii ugu dambeysay ee Ingiriiska balse raadadka ugu badan iyo dhismayaashii dhaxalgalka ahaa waxaa ka tagay boqortooyadii Cismaaniyiinta oo halkaasi ka dhistay dekad iyo masaajidka ugu weyn uguna qadiimsanaa ee laga dhiso magaalada Saylac waxaana ku soo xiga boqortooyadii Ingiriiska oo iyada lafteeda ay sii muuqdaan xafiisyadii ay ku lahayd magaalada Saylac Maxamed Jaamac Raamaale waxa uu ka mid yahay dadweynaha degmada Saylac waxaana uu nooga waramay waxa uu ka og yahay taariikhda degmadaasi qadiimiga ah ee Saylac oo ka mid ah magaalooyinka ugu faca weyn Geeska Afrika waxaana lagu qiyaasaa in la degay oo ay magaalowday kumanaan sanadood ka hor marka hore waxaan salaamayaa idaacadda Home Cable dhammaantood baan salaamayaa rag iyo dumar waxaan kaloo gaar ahaan salaamayaa magaaladan Saylac waxa weeye waa magaalo fac weyn taariikh dheer leh waxay caasimadda bariga Afrika ahayd ilaa dhalashadii Nabi Ciise ka hor ayay ahayd taariikhda ayay ahayd magaalo caasimada magaalo ganacsi bay ahayd dhalashadii Ciise ka hor marka xadaaradeedu in badan bay soo socotay qarnigii shanaad markii taariikhda la soo gaaray waxa soo maray asxaabtii ka soo caratay ciqaabtii Quraysheed ee u soo hijrootay ardul Habash halkaana waxay ka dhiseen miskiidka la yiraahdo Qiblateynka ay ka dhiseen waxay isku xiri jirtay wadamo badan oo caalamka ka mid ah bay isku xiri jirtay waxa ka ganacsan jiray doonyaha Hindiya Shiinaha iyo Carabta ayaa ugu badnaa ganacsigooda marka 6 biloodna way soo socon jireen doonyuhu 6 biloodna way soo socon jireen xagga jidka Adari iyo Saylac waxa tagi jirtay badeecad aad u fara badan waxna way ka iman jireen waxna way tagi jireen gaadiidka markaa shaqeynaya wuxuu ahaa awr aad u badan marka waxa la yiraahdaa khadkii Adari iyo Saylac taariikhdaas marka way wadadaasi la sii maro dab looma qaadan jirin wax daba sababtoo labada xidhiidh kii soo socday iyo kii soo socday
ayaa isku xidhan dariiqaasi wuxuu ahaa saylad oo kale xaggan waxaa ka dhoofi jiray sida xabagta fooxa haragga waxyaaba caynkaas wadamada kalena waxay noogu iman jiray badeecadaha kale ee dharka iyo bariiska iyo timirta iyo waxaasay ka mid yihiin taasi waa ganacsigeedii xagga fiditaanka diinta islaamka culimadii ugu soo horreysay waxaa ka mid ah sheekh ibraahim saylici sheekhan iminka qudbigiisu ku yaalla meesha wuxuu ka mid ahaa culimadii fidinta diinta islaamka isaga iyo sheekhan laydhaa aw barkhadle ayaa mar soo wada galay oo ku soo hagaagay qaybteena soomaalida aduu qaybtan ku soo hagaagay yaan odhan soomaalidaba qaybteenan ku soo hagaagay marka sheekhani wuxuu la kulmay meel xadaaradeedu aad ay u sarrayso oo dadku wakhtiga ay muusigto marka waxay ku qasabtay si diintii dadka loo geliyo in wax soo jeediya loo sameeyo waxaasina maxay noqotay ciyaartan sayliiciga waxaa sameeyey sheekha ciyaartaasoo markaa qowmiyadihii meesha ku noolaa oo dhan bay ka kooban tahay si markaa dadkii waxay ka soo kaceen muusigii waxay yidhi wax cusub baa yimiday meesha ciyaartii bay ku soo kaceen waxay ka mid ahayd waxyaabihii lagu muslimiyey dadka reer Saylac ee loo adeegsaday xagga islaamka ay ka mid ahayd inay u soo kacaan waxa loo sheegayo islaamka ay ka dhageystaan markaa dadka islaamka marka taas waxa xaggii soo galidii diinta ay ahayd iyo koruqaadkeedii ta kale dabeecadaha dadka reer Saylac ay lahaayeen magaca qura Saylici la yiraahdo bay lahaayeen iyagoo qoomiyada badana iyagoo dad kala duwan ah iyagoo dad badan oo kala gedisan ah magaca qura Saylici ay lahaayeen oo qofka reer Saylac waxa uu caado ahayd haddii uu wadamada adduunka tago inuu yiraahdo wax reer Saylici ma degan wax reer Saylici geeya marka reerkii loo geeyo ama hindi ahaado ama suudaani ahaado ama sawaaxil ahaado ama ciddu doonaba ha ahaadee wuxuu noqon jiray nin xaafadoodii soo galay xadaarada badan markaa waxaa ugu wacnayd qabyaalad la'aanta iyo ereyga ay ku midoobeen Saylici la yiraahdo xadaaradaha kala duwanaaye ee soo maray meeshu waxay sidoo kale ay Saylac uga tageen dhismayaal iyo raadad taariikheed oo muujinaya halkan dad inay joogi jireen sanooyin badan ka hor xadaarada noocaas ay dhismayaashu sidii magaaladan bal hadda uga muuqdaan iyo inta meesha ka baxday wax xog ka hayso bal taana la wada imika horta dawladihii soo maray dawladda ugu shaqo badnayd ee ugu waxqabad badnayd waxay Turkiga dawladda Turkiga oo waxyaabihii ay sameeyeen imika wali ay wax ka taagan yihiin waxa ugu horeeya masaajidka imika lagu tukado jimcaha waxa sameeyay Turki macbadka taariikhda lagu kaydiyo waxa sameeyay Turki barkad ku taala magaalada Gasiirada Saacadiin waxa sameeyay Turki dekedan imika yar aanu isticmaalno waxa sameeyay Turki marka kii ugu waxqabad badnaa wuxuu ahaa Turkiga calaamadaha uu sameeyay muhiimka oo ilaa hadda laga manaafacadsado Ingiriisku isagu wuxuu sameeyay Ingiriisku wuxuu sameeyay guriga kooxo ayaa ugu taariikh badnaa oo isaga laftigiisu taariikh degdega ku dhismay sababtoo Ingiriiskii markii uu dalka soo galay nin dhulka degan maaha wuxuu galay guri kira ah oo dadka shicibka ay iska leeyihiin dabeedna waxay isqabteen ninkii guriga lahaa iyo ninkii Ingiriiska oo isqabteen markay isqabteen ninkii waxa noqotay inuu yiraahdo iga bax guriga meedii xoog sheeganaysa marka ilaa gurigii soo weeraro ninkii oo uu yiraahdo marka ninka Ingiriiska bandarada saru degan yahay tawasana waxa degan ninkii guriga lahaa ninkaasi wuxuu yiri anigu waxaan doonayaa inaad guriga iga baxdo haddii kale ana ka guuraya oo sideed u guuraysaa tii qaybtan hoose la baxaya ee bandarada soo la baxaysa qaybta hoose kuuriyuu ku soo kiciyay dadkii magaalada dhexdhexaadiyay markaa ninkii iyo ninkii Ingiriiska marka ninkii Ingiriiska dawladdiisii wuxuu sheegay in marxalad adag soo wajahday ninka reer Saylac ee guriga lahaa ee Ingiriiska ku khasbay inuu guriga uga baxo magaciisa ma noo sheegi kartay ninka kale ee guriga laga saaray horta ka Ingiriiska ma hayaanu ka Ingiriiska ma hayo ninka reer Saylacna sidaan filayo wuxuu haba lagu yiriyeen xajidiidi familkiisa aad xajidiido bil baa loo qabtay ninkii muddo dhowr bilood 3 bilood meelaas waxa loo qabtay 4 bilood baa loo qabtay leeyahay intaas uu kaga bixi doonaa inta waa inuu meel golo raadsadaa dawladda Ingiriisku awoodeedii ayay soo isticmaashay marka baa laga soo reeyay Hindiya 400 qof oo shaqaale ah buu birihii iyo qalabkan gurigan ayuu keenay
gurigaasi sala inoo sheegay wuxuu ku dhammaaday 3 bilood ee taariikhda dheer soo maray waa gurigan magaciisa maxaa anagu imika koocaan ilaanaa waagi hore kooco ayaa ilaanaa waagi waxa lunti guriga dhisiga ayaa loorin jiray imika koocaan ilaanaa ha waa tii ingiriiska waxyaabihii ku yimiday waxa qarnigii 16aad madax ka noqday nin la oran jiray Cali Dable oo Soomaaliya ayaa madax ka noqday qarnigii 16aad uu soo waday haddana waxa ka dambeysay gabadh canfaryada oo la yiraahdo Nadiira Diini marka xukunka Afrikaanka mar baa qayb mar cadaan mar dad kale laakiin labadaas baad Afrikaan bay hayeen oo labaduba waxay soo mareen dadkii kala duwanaayee soo xukumay magaalada Saylac marka waxa uu caansanayeen Cali Dable iyo Nadiira Diini oo labada qarniye isku xigay xukunkoodu soo socday dawladahana shakhsi loo ma sheegin jamaacahan baa loo sheegay mar xataa waxa yimideen dagaalkii labaad ee adduunyada ingiriisku isagoo haysta intuu ka baxay ayaa haddana waxa uu soo daba maray Talyaani 1945 ayuu Talyaanigu yimiday marka sida la rumaysan yahay taariikhdii marka macfaska ku kaydsanayd in Talyaanigu bilal qaystay waxyaabihii ku kaydsanaa oo dawladdu sanadkiiba waraaqaha ay bedesho ay ku xireen jirtay kuwaas markaa de taariikha Talyaaniga 1945 ayuu qayb qaatay kabacdi markuu dhowr bilood joogay ayaa haddana ingiriiska ku soo noqday marka dhex joogta magaalada Saylac waxa indhahaagu ay qabanayaan dhismayaal qadiimiya oo aad garowsanayso in taariikhaha laga warramaya ay soo martay Saylac waxaana aad garan kartaa in meeshan ay kulmisay xadaarado kala duwan oo awood dhaqaale iyo awood cilmi iyo mid farsamo lahaa sababtoo ah dhismayaasha burburkoodu si muuqdo waxay ku muujinayaan in xilligaasi ay jirtay farsamooyin macno badan leh iyo naqshadaha aqoonta dhismuhu xilligaasi ay muujinaysay dhismayaasha qadiimiga ah ee Saylac ku yaala waxaa ka mid ah masjidka qadiimiga ah ee loo yaqaan Qiblateynka sababta loo yiri Qiblateyn ayaa ah in masaajidkaasi uu lahaa laba qudbi oo mid ka midi uu u jeedo dhinaca qibladii hore ee islaamka ee Baytul Qudus ku beegnayd balse markii dambe la soo diray Nabi Muhammad naxariista nabadgelyo korkiisa ha noqotee ee muslimiinta la amray inay u jeedsadaan dhinaca Makka ayaa masaajidka Saylac ee muslimiinta xilligaasi ay ku tukan jireen waxa masaajidkani ay u sameeyeen qiblo kale oo u jeeda dhinaca xaramka barakaysan ee Makka al-Mukarrama marka laga hadlayo diinta ay aaminsanayeen dadkii hore ee Saylac aasaasay taariikhyahanadii sahaminta ku soo maray geeska Afrika waxay ka qoreen dadkaasi inay ahaayeen dad muslimiina waxaana taasi markhaati u noqonaysa in Nabi Muhammad hortii dadkii Saylac ku noolaa ay tukan jireen sidoo kale magaalada Saylac waxa ka soo degay qaar ka mid ah saxaabadii rasuulka naxariista nabadgelyo korkiisa ha noqotee kuwaas oo ka soo baxsaday dulmiga iyo cadaadiskii la saaray Nabi Muhammad iyo asxaabtiisa iyadoo saxaabadii u soo hijrooday dhinaca geeska Afrika ay ka soo degeen magaalada Saylac isla markaasina ay u gudbeen dhulka Ethiopia nasiib darro masaajidkani qadiimiga ah ee Qiblateynka ee taariikhda diimeed ee aadka u fog ka tarjumaya ma helin qiimeyntii uu ka mudnaa dadka deegaanka iyo dawladaba waxaana ku dhacay burbur aad u ballaaran waxa hadda ka sii taagan oo kaliya qaybtii qudbiga intiisa kalena gabi ahaanba waa ay burburtay waqti xaadirkana ma muuqato dadaal lagu daba qaban karo inta raadkaasi ka hadhay ee masaajidkaasi ka sii muuqata waxaana aad dareemi kartaa in waqti dhow uu baabi'i karo dhammaan baraadkii dhisme ee masaajidkaasi Qiblateynka mas'uuliyiinta gobolkani ugu sarreysa ayaanu wax ka weydiinay sababta loo dayacay iyo mas'uuliyadooda la xiriidha ilaalinta raadadka taariikhiga ah ee ku yaala magaalada Saylac raadadka hore si adag baan u ilaalinaa dhismayaashii hore ka jiray oo ka mid yahay masaajidkan muxuu ahaayay Qiblateynka runtii waanu ilaalinaa laakiin waxa jira had iyo jeer dhismayaashu way duwaano meesha waa xeebo waxa cuna jaanka waxaanu kala tashanay wasaaradda awqaafta oo aan warka gaarsiinay maadaama masaajidada gacanta ku hayso marka iminka waxa socdaa masaajidkaas oo kale iyo sidii waxa la leeyahay haddii ay iminka wada dhisno masaajid cusub iminka la dhisay buu noqonaya laakiin haddaba halkaa uu taagan yahay oo qibladii iyo halkii lagu weysiisanayay iyo dee wixiisii oo dhan wada muuqdaan bal halkiisa in sidii aan ugu sii
dumi lahayna lagu ilaaliyo markaa labada arrimood ayaa iminka aan isweydiinayna waxaa kaloo qadiimiga ah oo dhan iyagana waa la ilaaliyaa qaar badan oo dumi way jiraan oo aan sidooda ku ilaalino aasaartaasi dee maalin walba waxaa noo yimaada dad booqasho ah oo soo booqanaya gobolkii oo ay soo jiidanayso marka aad baan u ilaalinaa. marka laga hadlayo saylac iyo nawaaxigeeda bulshada ku dhaqani waxay taariikh ahaan lahaayeen ciyaar dhaqameed ay caan ku yihiin oo loo yaqaano ciyaarta sayliciga waana ciyaar aad u fac weyn oo la curiyay kumanaan sannadood ka hor. waxaana bilaabay oo ciyaari jiray dadkii kala duwanaa ee saylac ku noolaa qarniyadii la soo dhaafay dadkaasi oo ka soo jeeday qowmiyadaha kala duwan oo ay ka mid ahaayeen Soomaali, Canfar, Hindi, Carab iyo dadyow kale oo xadaarad ahaan soo maray deganaanshaha degmada Saylac. waxaana iga warramay arrintaasi Sacad Aayatalle oo ka mid ah dadka ciyaartaasi sayliciga. waad mahadsantahay Cabdishakuur waraysigan aad ugu waraysanayso degmada Saylac aad noogu timiday. ciyaarta saylicigu waxay ka bilaabantay magaaladan si ay isku dhex galaan dadka ku nool oo qowmiyadahoodu aad u fara badnaayeen oo ay ka mid ahaayeen dad Soomaaliya, Carab, Hindi, Sawaaxili iyo Canfar taasoo ku mideeyeen ciyaaraha iyagoo iswada afgaranaya si ay magaranaysaa ciyaartoodii u mideeyaan nin walba ugu dhawaaqay afkiisii uu ku hadlay haddana ay isfahmayeen. ciyaartaasi dadku marka la yiraahdo dad kala duwan oo kala afa wada ciyaarayay waxay isweydiin karaan dadkan marka meeshan maxaa isugu keenay maxaa keenay in Sawaaxili iyo Hindi iyo Carab iyo Soomaali iyo Canfari ay Saylac isugu yimaadaan xadaarada noocaas maxay ahayd taas waxaan oran karaa waxa keenay magaaladan waxay ahayd sida ogtahay magaalo qadiimiya magaceedana marka hore awdal la oran jiray oo geeska Afrikaba ay ka soo gashay diinta islaamku ama ilbaxnimadu sida imka boorka Djibouti iyo berbere iyo ay wax uga soo degaan ay kaligeed geeskan Afrika aysan jirtay taasana waxay keentay in dad badan meesha iskugu yimaadaan haddana dadkan waxa ka shaqeeya dad ilbaxa oo ah inay dadku isdhex galaan si ay u sameeyaan ciyaarahaas afka kaliya ee ay isku midoobeen la isku wada garan jiray waxa ahayd Carabiga. marka Carabiga wuxuu ahaa luqadda rasmiga ah ee Saylac lagaga hadlo dhammaan dadka jooga ay kaga hadlaan ama Sawaaxili ahaado, Canfari ahaado, Soomaali ahaado, Hindi ahaado afka komka ay ku wada hadlaan ama isku fahmaan waa Carab. ciyaartan intaan ka soo gaaray horta markay aan arko dadkii aan ku soo gaaray ee ciyaar jiray iyo aniga kooxda ila ciyaarayso oo iyaguna qaar ila daa ay jiraan isku ma dhaweyn boqolkiiba boqol wax badan ma naga dhiman in boqolkiiba 50 keeno ayaa dhacaysa. adigu shakhsiyan ciyaarta sayliciga sidee baad isku ahayd wallaahi waxaan jecelahay dhalinyarta aan la daa ahaa kuwa ugu firfircoon inaan ka koow ah qofka heelada ciyaar jiray ama ciyaarba ciyaar jiray hadduu arko iyadoo la dhabqinayo waxaad moodaa inuu xanaaqo oo cadhoodo waxa dhacda mararka qaarkood afar ila taqaano waan helaa dad kale oo xiiseynaya oo iyaguna xiiseynta ay xiiseynayaan raba inay ciyaaraan haddana ciyaartuna ay u baahan tahay barasho mararka qaarkood in la cadhoodan ka baxo ayaa dhacda oo qof kale markuu ciyaarta barto saasay noqotaa. marka dhalinyarada imika joogtaa xiise inta lag baa qabaan in sayliciga la ciyaaro la sii joogtay aad bay dadku jecel yihiin siiba dadkan dambe ee dagaalka wixii ka dambeeyay Soomaaliland meel kastoo tagto magaceega aad baa loo jecel yahay in la ciyaarana waa la jecel yahay aseesha waxaan jecelahay waqti bayna saw u haysan. waxa jira dadkii kala duwanaa sibay wax ku bilaabeen oo ciyaartan sayliciga sibay isoo fahmeen iyagoo luqadooda kala gaar ka haysta ayaa haddana wax ay isku fahmeen maxaa adu ka maqashay sidee bay ereyadaas u dhici jireen waan isweydiiyay anigu dadkan maxay yihiin afkan lagu hadlayaa muxuu yahay heesaha qaarkood markaan soo qaado oo ay ka mid tahay heesaha ka mid ah oo ku wada jiraan luqadihii afkii dadkii meesha wada joogay oo odhanaysa hay bara lalimaka hay lale lalimaka
hayabo cali tulaalalimak ahaa sida sii wadwada sida ahaa sida sii wadwada sida dhinac waxaa kaga jira soomaaligii dhinac waxaa kaga jira canfarigii dhinac waxaa kaga jira sawaaxiligii dhinac hindigii baa kaga jira carabiguna dhexda u yahay ahaa sii wada sida oo soomaaligii ugu dambeeyana ku daba jira iyo kuwa badan oo ay la mid yihiin oo soomaaligii lagu turjumayo xagaad ku maqnayd oo dee geeraar dheer iyo waxay wada ciyaarayaan ayaa iyaguna jira waxaa dhacday in gabadh inamada ka mid oo baxaarida waxaa la yidhahdaa nimanka naaqudayaasha kuwa ka shaqeeya doonta ayaa la yidhahdaa hase yeeshee inaan ka shaqeeyo gabadh magaaladana ayaa loo doonay gabadhii waktigii dabeelaha mansuunka ay dhacaan ee hindiya ay tegeen ayaa waxaa dhacday inay doontii ku habsaantay inantiina muddo badan ay sugtay reerkii inan kale in la siiyey markii la siiyey waxaa dhacday in laba oday oo kale ay iska soo doonteen oo inantii la bixiyey ciyaartii waktigii sayliciga loo ciyaarayay meherkeegii ayuu inankii wuxuu soo istaagay tikada dadkani waxay heesahooga iyo ay ku sheegan jireen eryadooda heeso inay ku dhiibtaan ama geeraar gabay inantii markii meeshii waxaa loo dhisi jiray taaj wax la idhaahdo ama kursi dheer oo dadka ka sarreeya si ay u daawadaan arooskii aroosadu maxiiska iyo maxiisada inanta ayaa dhawaaqday waxay tiri yehowa doonyihii bumbey reer suur iyo reer saaxir ba yimide yehowa alla doonyihii bumbey ma birbaa ku jabane isagoo orodkii ku maqnay ina gabadhii halkaa lagu meherinayo oo xarqadiisii baxriga ahayd sitaa ayaa waxaa dhacday inuu soo ordu soo dhexgalay dadku kasoo dhex booday yehowa amba waan jeclaa inaan soo dhaqsaday yehowa alla jilaaladiiba jidka igu xayiray oo wuxuu sheegayaa dabeylihii maansuunkee badda ku kacay waan gartay markaa ciyaartii durbaanka dadkan jooga iyagaa maamula durbaan bay markiiba ku dhufteen muliyo haysase muliyo waa inanka imanayay haysase ayaa ahaa inanku muliyona waa gabadha la aroosayay bay ahayd muliyo hoysase hoysase muliyo hoysase hoyahe halkaas ciyaartii ka bilaabantay nin kastaba wuxuu ku sii darsanayay afkiisiina uu ku sii darsaday ama Soomaali ahaado ama Canfari ahaado ama Sawaaxili ahaado ciyaartu waa dhowr nooc ninba sibaa loo ciyaaraa hase yeeshee godadkeega ugu fara badan wuxuu noqdaa 5 uu baranayaa waxay noqonaysaa inuu ku barto fadhi marka hore inuu midhaha xafido midhaha markuu xafido sacabkeegu rigbisa ay u dhacayso iyo durbaanka suuq la eeganayo waa inuu yadna bartaa u raaciyaa luuqdii markuu barto eriyadii waa inuu sacabkana haddana la helaa saddexaad waa la kacayaa cagti sidii loogu dhufanayay iyo sacabka codka midhaha mar qura inay wada dhacaan durbaanka isagoo la soconaya ciyaarta sayliciga ayaa waqti xaadirkani waxay ka mid tahay ciyaaraha ugu xiisaha badan ee laga yaqaan dhulka Soomaalida degmada Saylac waxay ahayd xarun ganacsi oo ballaaran taas oo quudin jirtay geeska Afrika marka laga hadlayo ganacsiga iyo wax isdhaafsiga waxaana arintaasi saldhig u ahaa lacagta ama waxyaabihii kale wax lagu kala iibsan jiray waxaana noo suura gashay inaanu aragno qaar kamid ah astaamo muujinaya qaybo kamid ah lacagihii kala duwanaa ee wax ku kala iibsan jireen dadkii reer Saylac ee ganacsiga isweydaarsan jiray gaar ahaan boqortooyooyinkii Saylac ka tarin jiray 180 sano ee la soo dhaafay waxaana gacanta ku haya raadadkaasi Idris oo kamid ah dadweynaha magaalada Saylac waxaan isu diyaarinaynaa safar kooban oo gaaraya ilaa 20 daqiiqo oo mid kamid ah saximadaha ama balaashashka halkan ku xiran aanu isticmaali doono isla markaasina aanu tagi doono jasiiradda Saacadadiin oo ah halka idinka muuqata
sacaadadiin waxay ku taallaa duleedka waqooyi ee xeebta magaalada saylac. jasiiradani sacaadadiin waxay ka mid tahay ugu yaraan 6 jasiiradood oo isku dhowdhow oo dhammaantood waqooyi kaga beegan magaalada saylac. hase yeeshee jasiiradda ugu weyn uguna quruxda badan waa sacaadadiin. sacaadadiin waxay ku fadhidaa dhul gaadhaya ilaa 8 kilomitir oo isku wareega, waxaana ay leedahay qaybo bannaan oo leh xeeb dheer oo lagu dabaalan karo. halka qaybaha kalena ay yihiin gacamo si qurux badan u dhex wareega jasiiradda. markaad dhex mushaaxayso jasiiraddaasi ayaa waxaa indhahaagu ay qabanayaan geedka loo yaqaano qandarka iyo mid kale oo loo yaqaano takhayda ee dacalka kula jira biyaha badda, isla markaasina quruxda iyo bilicda u gaara u sameeya jasiiraddaasi sacaadadiin. muddo 20 daqiiqo kadib markaanu ka soo baxnay magaalada saylac, hadda waxaanu soo gaadhnay jasiiradda bilicda san ee sacaadadiin. indhihiinu waxay qabanayaan biyaha badda oo aan mawjad lahayn oo si aad u degan, iyo sidoo kale geedkan cajiibka ah oo ah kay caanka ku tahay jasiiradda sacaadadiin. sacaadadiin waxay ka mid tahay meelaha ay ku dhaataan dadka Soomaalida ah, gaar ahaan Soomaaliland marka gudaheeda la joogo. waxay ka mid tahay meelaha dad badan dalxiis ahaan ay u qorshaystaan. cadceedda, falaaraheeda, geedka cagaaran iyo mawjadaha baddu, saddexdaasi oo isku saddexan ayaa ishaadu si weyn ay uga boganaysaa. goordhow waxaanu la hadli doonaa qaar ka mid ah dadka halkan iyagu jooga laamaha ammaanka iyo kuwa kale ee dalxiis ahaan halkan u ilaaliya, si aanay u dhalan gadoomin ama aan dhibaato loo gaarsiinin bilicdan quruxda badan. geedka waxa la yiraahdaa qandal baa la yiraahdaa. waa geed jasiiradan ku caan jasiiradaha kale ma laha. jasiiradan u baale imise jasiiradood kale ay harraa naga xiga. xaga waxay naga xigaa 5 baa xaga naga xiga 6. 6 jasiiradood. 6 jasiiradood baa naga xiga. tan magaceed tan Saudi baa la yiraahdaa. taa kale waxa la yiraahdaa Sheekh. ta kale waxa la yiraahdaa Cibaad. ta kale Koomaali baa la yiraahdaa. ta kalena Abu Milix baa la yiraahdaa. ta kale Dureyn baa la yiraahdaa. waa 7 weyn. marka waa 6 ama 7 jasiiradood oo isku xiriirsan. bilicda marka laga hadlayo geedkan iyo qaabka ay soo saaran tahay 7 jasiiradood ee ugu quruxsan ta ugu quruxsan ee geedaha waa tan weey. waxay kaga duwan tahay kuwa kale baaxad. waxay kaga duwan tahay gacanadan ma laha biyo la dhex marayo. ma laha kuwa kale. geedahan faraha badan ma laha. marka jasiirada kale xiisku leeyahay waa tan ugu quruxsan. marka keemika hadda doonaysa dadka ilaaliyaad kamid tahay. marka doonaysa in meesha la ilaaliyo sidee baad u ilaalin karaysaa? yoota waxa la ilaaliyo waxay ugu dhibta badan waa dhifta weyn. si aan dhifta loo gooyin. aan baa waxay loo yeerin garanayso. marka waan maraa waan ku soo wareegay aagna waan joogaa intii meesha garanayaan garanayso. dadku maalin kasta waa limaada maalin kasta. maalin hadii la maqayo maalinta labaad waa limaada. marka dad qiyaas bixiso bishii oo kale mise qof baa meesha liman kara. aduu ma badnaa laakiin marmar sida caadiga waxyaabaha kale caanka meeshan dadku ay aad ula dhacaan waxa kamid ah banaanka marka loo baxo kale ugaar baa jirta. bal kuwaan naga war. deeray joogta baal deeray la yaa hakan banaan ku dhaqan. marka halkaas iska fadhidaadii roob markuu doona biyaha way cabtaa marka kale barkadii halkaas ka cabtaa. idinka waa loo sameeyay macna. barkada bari wala la sameeyaa iyo bari dhexdeedna mid baa la sameeyay. marka taas iska cabtaa iska noo shaqo cid wax yeelaysan naga kala ilaalino inay dusha ka. marka tiraahan mi badan soo yarta. waa dhowr iyo 25 xabooyin. marka hore meesha meel keenay mise ku dhaqnay. bariyo hore la keenay iyadoo joogto ma anagu ugu nimid. marka ma tarantayo tirada intii ka badan. way taranto aduu degmar bay dhowr iyo 30 gaadha. laakiin marka waaweyn kuma dhintay yar kuma soo kaca waaweyn kuma dhintay yar kuma soo kaca wax kala xawayaan ururta kuma noqdo. marka loo eego dadku sida u jeclaysanayaan geedkan geed la mid oo kale oo meesha lagu beeray ma jiraan geedo kale noocan oo ku yaala jasiiradaha ma jiraan. ma la beeri kara kuwa kale diimka beer la israa wala beeri kara waa dhul baxayaan. dhul banaan oo dhir laga beeri kara ma jiraan. hadda halkan gacnada kale dibadda hadii laga beero way beermayaan. geed timireedka kale waxa la dhahdaa xeebaha si wanaagsan buu ugu baxaa. weli ma tijaabisan kaas. weli ma keenay halkan
xeebaha aadka ugu baxda maxaad ka taqaanaa والله حيوان كله كل جيدا كلا كم حلا كين جيدا حاجة كبح هم كانوا بحانته جيدا كانوا قاروين واللي بدأ جيد كسو تخي إيوه حلا قندل intii aanu ku sugnayn jasiiradaasi kula kulannay kalluumaysato halkaasi ku sugnaa isla markaasina ku hawlanaa nooc ka mid ah kalluumaysiga oo loo yaqaano saangada waana nooc ka mid ah xayawaanada badda laga soo jilaabto oo aad looga jecel yahay dalka dariska ah ee Djibouti oo ah meesha ay u iibgeeyaan waxaan ku suganahay xeebta dhinaca bariga ah ee jasiiradda Sacaadadiin halka waxa idinka muuqda mid ka mid ah xayawaanada badda oo la soo qabtay xayawaankan magaciisa waxa la yiraahdaa saango dadku badankooda waxa laga yaabaa inay yaqaanaan kalluumaysato laakiin waxa jira qayb kale oo kalluumaysiga ka mid ah oo loo yaqaan saangoolayaal haddaba saangoolayaashu maxay yihiin waa dadka iyagu soo qabta xayawaankan imika muuqaalkiisa arkaysaan oo ah xayawaanka loo yaqaan saangada saangadu kalluun maaha laakiin waa nooc ka mid ah xayawaanka badda ku jira ee la soo jilaabto saangadu marka la cunayo dhadhankeeda ka war waa sida kalluunka aadi waan gartay soo qabashadeeda ka waran kalluunka ma ka saalantahay soo qabashadeedu way ka saalantahay sida kalluunka loo qabanayo si ka fudud baa loo qabanaya waan gartay marka deegaan ahaan meesha saangadu ay ku nooshahay iyo meesha kalluunku badda kaga nooliyay ma isku meel baa waa isku meel un bas badda biyaha ma ku wada dhex jiraan waan gartay imka adigu goormaad barrigii ka timid halkan timid kalluunkan hawshiisa bilowday xalay ilaa habeen hore halkan joognay waxyaabaha ugu la yaabka badan ee badda kala kulanto dhibaatooyinka leh wax walba leh xiisaha leh ilaa waa shaqo maalin walba soconaysa waxyaabada kula kulmo sidaa bariga dhibaatooyinka ugu jiraan baddana u jira maxaa ka mid ah kulley waxyaabo kula soo darsa oo kumuda xayawaanka oo ku cawira badda oo ku liqda daweelo kugu kaca waxyaabaha ugu dhibaato badan ma yar tahay saangadan hadii ku qaniinto ka waran bal waxba cudur iyo caatamina ma leh waxba burbaleen ma leh saangadan dhulkaba laga jecel u iibgeysaan Djibouti dhulka Djibouti baa looga jecel yahay maxaad u baahan tahay in laga caawiyo kulley wixii lagu tagtagi lahaa meelo lagu soo meelaha saangada badan lagu tagi lahaa iminka marka doonaysaan baddo kala subaxina bilowdaan dhinaca u foofaysaan iyo dhinacay ku badan tahay iyo soo xog in la raadiyo maaha oo halka saaka loo baxayo marka sidee sahanka hore xogta loo helaa waxa loo helayaa caariga iyo buuxaad ku kala xisaabtamaysaa badda buuxeega iyo caarigeyga iyaad ku kala xisaabtamaysaa dhul buuxa lagaga shaqeeyo dhul caariga lagaga shaqeeyaa kala jira dhulna buuxaad kaga shaqaynay dhulna markay caaridey noqotaad iyaad ka shaqaynaysaa buuxoo kala xayawaanka ku badan oo kuway waxa ku badan baashan iyo baal kale oo la halmaalo iyo rabiishka iyo waxyaabaha waa ku badan marka caariga tahayna haddaba waxaan ku weydiin lahaa ugu dambeyntii xoolaha marka la waraabinayo iyo marka la foofinayo iyo marka hees bay leeyihiin kalluunku hees u gaar ah oo aad kaga shaqaysan ma leeyahay shaqooyinka kale ma xiisaysaaye badda ka duwan shaqooyin kale ma xiisaynaysaa maya shaqada badda umaan ku shaqoonaa oo ka shaqaynaa bal waxaad iga warantaa noloshaada iga waran qoyskaaga wax ku degan yahay looyacda agaheyga degan yahay waan gartay imisa carruur leedahay 3 mil daawadayaal hadda waxaa laygu wareejiyey mid ka mid a kalluunkii ay soo qabteen kalluumaysatadu waxaana loogu deeqay maanta inaanu kaasi isku filaysiino si aanu bal u dareenno nimcooyinka badda ku jira iyo tacabka loo marayo iyo sida loo isticmaalayo waxaan uga mahad celinayaa kalluumaysatada iyo maxamed cawaale iyo bahdeedan kala wada socota oo maanta nalagu soo riyeeyey mid ka mid ah cunooyinka ugu xiisaha badan ee badda ka soo baxa ka sheekh badda ka soo baxay meel kasta deegaanka marti bay leeyihiin dadku hadda markuu soo baxay wuxuu yiri marti baa joogta badda maanta wuxuu noo arkay inaanan ahayn dadkii badda marka waxa laga yaabaa in hugeena iyo wax loo gartay inaan martinahay sidaa darteed wuxuu inagu soo riyeeyey maanta xabaddan kalluunka nawaaxiga jasiiradani Sacaadadiin iyo jasiiradaha kaleba waxay martigeliyaan oo ay hoy u yihiin kalluunka ugu badan xeebaha gacanka cadmeed waayo deegaan badeedkani xeebta Saylac waxaa ku badan dhagaxa loo yaqaano shacaabiga kaasoo soo jiita kalluunka isla markaasina ugxanta u dhigta kalluunku iyo xitaa xayawaanada kale ee badda taasina waxay soo jiidatay maraakiibta shisheeye ee xukuumadda Somaliland ay ka kiraysay inay halkaasi ka kalluumaystaan waxaana ay ka yimaadaan wadamo kala duwan oo ay ka mid tahay waddanka Masar kalluumaysatada xeebaha Saylac
ayaa qaba cabashooyin ku saabsan inaanay haysanin kaabayaashii u sahli lahaa habka kalluumaysiga isla markaasina maraakiibta kalluumaysiga ee shisheeyuhu iyo kuwa ka yimaada dalalka dariska ah ee Jabuuti iyo Yemen ay kaga awood bataan xeeladaha kalluumaysiga ee ka jira degmada Saylac. waxaana arrintaasi ka warramaya Maxamed Ibraahim Cilmi oo ku magac dheer jaamacadda oo ah dadka 10 sanadood la soo dhaafay ku hawlanaa kalluumaysiga badda degmada Saylac. لكن ما هو كيس بدل اللي كانوا كشقيه مواد كده وشقيستay ilaahay. Maxamed Ibraahim Cilmi waxa sidoo kale aan wax ka weydiinay arrimo ku saabsan khibradiisa dhinaca badmareennimada iyo sida ay u kalluumaysan jireen dadkii hore ee reer Saylac oo aabihii uu kamid ahaa. waa Maxamed Ibraahim Cilmi oo ku magac dheer jaamacadda. horta aan ugu horeysiyo maxaa jaamacadda loogu bixiyay? waxaa loogu bixiyay jaamacadda waa aragnimo iyo khibrad badan oo u leeyahay xagga badda weey. aniga aabahay waa kalluumaha. baddaas ku la soo barbaaray. intaas ku la kaalay. toban baa ku dhalay. wax kala ma baran badda mooyane. waa saacadiino. faan aynu ku faanno mooyane wax tarkeeyay. iyaga qof waan ku soo kordhinaya. dawladdu waxa loo baahan yahay inay dammeela ka samayso la harsado maaragtay macluumaad baa ku leeyahay. oo wax uu laga qabto laga sameeyay horumarka dalku uu ku koobnaanayay hargeysa dalxiiska ugu qatarsanaa leeyahay wasaaradda dalxiisku xaqana inay soo qaybso hadaba cilmigii kala badaan u leexano cilmiga baddu waxa la yiraahdaa baddu buurana way leedahay banaana way leedahay dhul ku taalana way leedahay khalad la maraa jiro oo la isticmaalo bal arrimaha wax naga tilmaan imika buurihii badda ka hadda ku tilmaan shacabkii oo kale kasiirada wuxuu jiraa 10 mayl وكو wareegsan yahay kalluunka dhan baa ku dhalan dhulka waa baysaska ugu weyn ee kalluunka balbala ilaa halkan shacab ma dhaxeeyo kaas shacab ka bilaabmaya dusheena saymka filfil balana waa shacab weyn waa shacab weyn 20 kiilo isku wareegayaan kalluunka ku dhalay dee waxaan la maqal takala gaadiidka badda dabaylaha ka carayay way ku gaban karaan shacab bal haday heleen sida laftiisa dhex dhiganayaan laba shay dhacay salaashkaas laga qiimayo waa gabaad badda horta waa isku dhalay waa isku wada furan tahay oo calaamado luma kala yaalaan laakiin haddana waxa ku soconaysaa jiyo wax la yiraahdo jiyo jihaad ku dhaqaaqaysaa intaas oo digre ilaa halka in yar loos ka marsama in kor ka marsama 5 digre hadda hoos u dhacdo ma kor dhacdo waxa laga yaabaa meel aan meesha ku toosaa والله marka conference baa lagu socdaa bahalada diirada ama jiheeye ama GPS baa kala isticmaalaa ay rabtay isaga ku dilaanaya steerku ma ku soo garanaysa falaada halka ku socota taysaadii imika maraakiibtu waaweyn oo kale GPS ka isticmaalaan GPS ka isticmaalaan macallaan miski ay ku shaqeeyeen baa ugu jira halkay mareen oo kale dib seen ugu mareen meel kale hadana u jiidaan shabagi waxa ku helo GPS ka dadka horaan GPS ka aqoonina kale maxay ku shaqeyn jireen waxa isticmaali jireen xidigaha xidigaha ku toosi halka waxay goynaysaa halka xidigaha dad hoos ka marto saasileeg xidigaha sal isticmaali jiray iyo shiraac bila mashiin kalluumaysiga imika jira cilmigii casriga yimi waxyaabo badan baa soo kordhay adiga aabaha ama awowga waxaanu haysamad haysataa aabaha aniga ma shiraacta maalintii dhigo habeenkii muu doona kar jirin laakiin lagu GPS ka la dulgeeyay habeen madow شبك بدي مهو عندك هبين كان مهو قرع الدم GPS كان ما يدل جاي كان صولك ما يقولين إن هبين كله كلامه صباح ذي يسوق شيء أنت علامات كحلان صباح ذي كان علامات ده اللي يجري هذا العصر كذا ما تشتغل الحين إما كانوا GPS إما كانوا GPS استعمالها يا كمبيوتر تروح على السطح marka laga hadlayo dabeecadaha ka jira dhulka xeebaha waxa kamida waxa loo yaqaan midiga oo ah isku xidhnaanta dayaxa iyo mawjadaha badda oo wada shaqeynay ka dhaxayso midiga waxa si qoto dheer noogu sharaxay Maxamed Ibraahim Cilmi oo ah nin kalluumaysta oo ku nool magaalada Saylac laba goor buu soo baxaa bisha 15 dayax markuu yahay sare tobnaadka
markuu soo baxaa waa ful biyo siyaadaa buu keenaa laba cisho saddex cisho marka ful muunku soddonka gaarana saddex cisho afar cisho biyo siyaadoo ku horahayn ayuu keenaa marka waa midigii soddonkii ama waa midigii 15kii labadaa goorba badda intii ahayd ka siyaada laakiin maxaa lagu qiyaasay in dayaxa iyo mawjadaha badda isku xidhan yihiin cilmigaasi muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa waa cilmi horta waa falakii waa rabaani cilmigani waa rabaaniyo de waata magolba ku haysta awadaranta fiidkii caddadaa walaala badda caari maalmahan badda caari maalmahan awadaranta fiidiyo caddadaa walaala caariga badda iyo caddadaasaa wada shaqaynaya oo marna baddana way ku caaridaa dayaxa marna buuxay ku keentaa caariga qofka gaangidana ku shaqeeya xataa qofka gaangidana xataa marna ay ka yaraataa marna ay ku korodhaa dayaxan la shaqeeyaa badda waa sida makaanka dumarka xataa ku shaqeeya dayaxa markaa nolosha koomkan inteeda badan waxay ku salaysan tahay dayaxan iyo cadceedan duruufaha ay qabaan dadka kalluumaysatada ah ee degmada Saylac waxaanu wax ka weydiinay maamulka wasaaradda kalluumaysiga ee gobolkaasi aan ku horeyna Faysal Ibrahim Cilmi oo ah isuduwa ku xigeenka gobolka Salal ee wasaaradda kalluumaysiga halkan waa deked qadiimiya oo aan ka dhaxlay Cusmaaniyadii sidaan ugu soo gaarnay ilaa hadda way shaqaysaa wax badan oo laga qabto iska yartahay inkastoo bari dhaweed la soo magacaabay inaan ka tirsan dekada Berbera oo intuu cali xor joogo wax yar laga qabtay laakiin anagu waxaan jecelahay in dekadani ay tahay dekada labaad ee Soomaaliland maadaama dekada labaad ee Soomaaliland tahay ilaa tii bare ilaa madaxweynaha maanta jooga wax weyn oo laga qabtay oo aan Siinaay ahayn ma jirto dadka ku xiran waa ilaa 450 kalluumaysato ayaa joogtay Saylac gudaheeda waxa la arkaysan halkan noogu yimaadaan haddii waan wada muwaadin gabi waa double face Djibouti lagama qaadaan wax sil cashuura kalluumaysatada kama qaadaan oo sharciga u yaala caalamka kalluumaysatada in la caawiyo mooyaane in iyaga dib lacag looga qaado ma dhacdo laakiin anagu maadaama dawlad soo kobcaysaan lahay anagu cashuur baan ka raadinaaba waa caqabada koowaad ee kalluumaysiga in la dhiirigeliyo ka hor imanaysa waa caqabad ku imanaysa kalluumaysatada halkay horumar ka sameyn lahaayeen ayay caqabad ku noqonaysaa dadka iyagii uma bislaa kalluumaysiga maalin walba waxay cunayaan hilib kalowdhade kiilowgii hilibka iyo kiilowgii kalluunka waxaa ka qaalisan kiilowgii hilibka ahaa waxaana ka nafaqa badan kiilowga kalluunka iminka dowladdanayna jaarka nahay 7 cisho maalin keliya ayay ka cunaan hilibka waa Yamane sababtaasaa keentay inay kalluumaysato ku dhiiradaan inay kalluun badan soo saaraan laakiin waxa taagan maraakiib iyo doonyo kalluumaysi ma ku jiraan qaar ajaanib oo ruqsadaas siiseen oo iyagu kalluumaysan ama Masar ka yimaadeen ama Yemen ka yimaadeen oo aan ruqsad siisan ma doonyaha kan taagan arkaysaa waa doonyihii ka soo qaxay Yemen oo imika jooga halkan Yemen bay ka soo qaxeen waxay sideen shixnad sigaar ah ay Yemen ku sideen xabadaha bin dhoodacay ayay ka soo yaaceen marsa ahaan bay u soo galeen halkan iyo amni ahaan bay u soo galeen isla arintaasi waxaan wax ka weydiinay gudoomiyaha amaba isuduwaha kalluumaysatada ee gobolkaasi oo lagu naanayso Mr. Xingalool kalluumaysigu dhowr nooc isugu jira ajnabina waanu ka shaqaynaa wadanina waanu ka shaqaynaa wasaaraddu waxay isugu jirtaa wasaarad cilmi iyo wasaarad wax soo saar wasaarad cilmi marka leedahay maxaad uga jeedaa waxaan uga jeedaa markaad caafimaadka leedahay scientist wasaaradda scientist weeyo xanuuno iyo waxba waa la mid marka kalluunka xabada kalluuna lama eegto xanaanadiisa hadduu xanuunsado hadduu dhinto haddii si xun assessment inta la sameeyo meesha uu ku jiro looma baahna in laga wada guro qayb baa laga leeyahay 40% marka laga kalluumayo meesha waa ka joojinaysaa kalluumaysiga wax offer fishing la yiraahdo ku dhacaya waa ka nabaad guuraya
marka qaabab noocaasa ayaan uga jeedaa cilmiyan marka aan ku leeyahay markii ka soo waado dee qaabka aan u wada ajnabina waanu la shaqaynaa oo waanu ka kiraynaa oo lacagta waa ka soo saaraa muwaadinna waa la shaqaynaa marka muwaadinku waa laba nooc mid wadanka gudihiisa ka waxa la siiyo waxooda la soo baxo ma faragashano laakiin marka ay dal kale ula gudbayaan iyagana cashuur baa ku waajibta qaabkeeda shaqo waa qaabka duruufaha ku gadaaman haddaa kuu yar taabto aad iyo aad duruuf adag baa lagu gadaaman shaqo imkaaniyaad ayaa ka dhiman marka wasaaradda kolleyba siyaasad bay leedahay waa ku daba jirtay muddo dheer hadda waxaad moodaa in laga midho dhalinayo waxaa jirta arrintan kalluumaysiga ee ajaanibka maraakiibta ka kareynaysaan iyo wadamadii ka soo jeedaan bal nooga war horta waxa weeye taasu cabashooyinkoodana waa ka mid annaga ka wasaarad ahaan dee sharci bay wasaaraddu ku dhisan tahay sharciga ayay ku taallaa in baddan kalluunka la kireeyo oo dakhli laga soo saaro lowga iyaga fishariguna ma mamnuucin stoorkuna ma mamnuucin marka mar hadday sharciyan fasaxan tahay waa in ay wasaaraddu kiraysaa oo dakhliga ugu badan sanadaha dee markaa dhowr boqol oo kulaanu ka soo xiraynaa sanadka waa hoosu dhac baa ku jira marka taasaa cabashada laga muujiyaa waa geedka ay tirolarka yidhaahdaan tirolarka jiriifkaanu fasaxnaa waa jiriif la yidhaahdo midwater tarool biyaha dhexe laakiin bottom tarool oo had iyo joor laga cawdo ma fasaxno markaa centimeters weyn ayay ka sarreeyaan gunta badda sideedaba waxaa kaa hor imanaya in la yidhaahdo dhagax buu jiraa bahalkan dhagax ma jiro bileedhkan iyo nadkan iyo xadhiggan iyo silsiladan ku xidhan baa ka qiimo weyn markabka uga qiimo weyn dhagaxan uu burburinayo markaa dhagaxa meel ka shishaysa oo siman ayuu bahalkanu maraa xeebaha ugu soo dhawaadan sooma xeebaha meesha biyaha dheer le ee siman matal markay shriibis wax la yidhaahdo bacsanayaan meelo siman oo aan dhagax lahayn bullacadoo kale gasiirada dusheedoo kale ayay la soo gaadhaan halkaasuna kooral ma leh kowdhe sidee loo kontroolaa iminka markabka badda ku jira ee fasaxa siiseen in xaddigii loogu talagalay uu qaaday iyo in kale maxaa ku kala ogaanaysaan shaqaalaa saaran inspector baa saaran iyo laba askari oo qoraya bahalkuna capacity buu leeyahay capacitygaasna weel baa dul saaran oo lagu guraa marka waa inspection waa wax laga warhaya oo lacagtana lagaga qaado marka qaabkaasaanu u ilaalina shuruudaha kale ee xagga badda dhowr iyo 20 qodob baa laysanka dushiisa ku qoran oo uu ku kontaroolaya askariga iyo ninka saaran ee inspectorka marka mas'uuliyadu markay wasiirka ka soo gudubtana ay dul timaada markay badda gashana labadaas ku hadha wixii khalad yimaada haddii aanu dib ugu noqono magaalada Saylac waqti xaadirkani waxaa ka muuqda koboc dhanka dhismaha ah oo intooda badan ay yihiin xafiisyada dawladda oo dhawaan xukuumadda Somaliland halkaasi ay ka hirgelisay kaabayaasha waxbarashada ayaa si muuqata uga jira degmada waxaana halkaasi ku yaala mid ka mid ah dugsiyada sare ee boardingka loo yaqaano amaba hoyga ah ee ardaydu ay u hoydaan kaasoo ay wax ka bartaan arday ka timaada degmooyinka gobolka Salal uu ka kooban yahay degmada Saylac marka aad joogto waxaad dareemi kartaa in adeegga biyuhu ay cidhiidhi yihiin inkastoo ceelal cusub oo loo qoday in degmada laga waraabiyo haddana waxaa dhibaato lagala kulmay qasabadaha biyaha ku soo xidhiidhiya ceelasha ilaa magaalada caqabadahaasi oo ay ugu weyn tahay nooca qasabadaha la isticmaalay oo noqon waayo nooc ku habboon isla markaasina la jaan qaadi kara in lagu aaso ciidda xeebaha una adkaysan kara waxa loo yaqaan jaanka oo ah daxalka iyo kuleelka lagu yaqaan xeebaha sidaasina waxaa noo sheegay xogayaha fulinta ee dawladda hoose ee degmada iyo sidoo kale xildhibaan Axmed Yaasiin ayaa waxa telefishinka Home Cable ay uga warameen qaabka horumarka iyo duruufaha gobolkaasi ku xeeran aad baan mahadinayaa kulley inii soo dhaweynaya bahda Home Cable TV oo safar dheer soo galay kulley nagu soo booqday magaalada Saylac degmada Saylac kulley waa degmooyinka
maxaan ku dhahdaa hormuudka ka ah jamhuuriyadda Somaliland waxqabadkeeguna kulley waa muuqdaayo waa wax la og yahay mashaariic badan oo qabsoontay way jiraan oo kulley wax badan aad indhihiina ku aragteen baan filayaa dhinaca biyaha oo kale haddaan ku horeeyo waad aragteen oo taangi weyn baa ka dhisan magaalada Saylac oo halka inaad indhihiina ku aragteen baan filayaa xoogaa waxa dib noo yar hakiyay oo inuu functional noqdo oo shaqeeyo u diidani tuumbooyinkii aan kolka hore maxaan ku dhahaa loogu talagalay inay u qaybiyaan magaalada biyaha ayaa nagu noqday tuumbooyin bilaa tayo ah halkeenana saad ogtihiin waa xeeb waa meel kulul qarax badan bay sameeyeen taasi waxay noqotay mashruucii inuu xoogaa oo ku yimaado dib u dhac ama maxaan ku dhahdaa hakad ku yimaado inuu biyihii la cabo oo laga faa'iideysto laakiin insha Allah de waxaan rajeynaynaa in laga bixi doono oo cilaajkeeda ama dawadeeda la helo oo ay suura gasho in wax laga bedelayo tuumbooyinkaas qorshaheedaan ku jirnaa fikirkeeda ayaa meesha yaala haddii aan soo qaato biyaha waxay ku taalo degmada Saylac ama gobolkanba waa xeeb waa dhul noloshooda ay aad u adag tahay xagga Hargeysa looga baahan yahay maalintii qofku inuu mar maydho ama 2 jeer uu maydho xaggan 5 jeer 6 jeer buu maydhanaya maadaama ay kuleyl tahay oo meel dhul xeebeed ay tahay alxamdulillah biyo la'aan badan baa jiri jirtay cabasho badan baa jiri jirtay marka magaaladan maanta aan joognay Saylac laakiin alxamdulillah imika biyo la'aantii sidii ma ahayn ceelal baa la qoday macaan awal biyo qaraar baan jireen ceelashii macaana annaguna dawlad hoos ahaan waxaan qaadanay inaan biyo gelin sameeyno biyo filintii magaalada aan ku wadnay wali nooma fidin kiyosyadii baan magaalada ka sameeynay farsamada naga xumaatay awgeed ayay u suura gali weyday inaan biyo fidino qasaabkii aan soo yiminay baa qarqarxay waayo cimilada magaalada ka duwan cimilada magaalooyinka kale baraaraha ay leedahay degmada Saylac ee ay kaga duwan tahay degmooyinka kale ee Somaliland waxa kamid ah waxay leedahay wax soo saarka ugu ballaaran ee milixda ee deegaankani waxaana ay ku yaalaan deegaanka loo yaqaan Toqoshi oo aan sidaas uga fogeyn degmada Saylac waa wax soo saar si farshaxanimo leh looga soo saaro milixda wax soo saarka milixda ee deegaankaasi Toqoshi ka soo baxdana waxa loo iibgeeyaa inta badan deegaanada Soomaalida wax soo saarka milixdu waxa ay martaa marxalado kala duwan oo hadba midab ayay muujinayaan ceelashu haddii aynu mid u sharaxno marxaladaha milixdu ay ku soo baxdo marka koowaad dadka ka shaqeeya arrimaha milixda iyo wax soo saarkeedu waxay diyaariyaan godad dhererkoodu dhan yahay ilaa 3 mitir oo hoos u qodan marka godadkaasi la diyaariyo kadib iyadoo aan lagu shubin wax biyo ah waxa si dabiici ah u soo maaxa biyaha dhanaan ee badda biyahaasi ayaa waxa halkaasi ay ku jiraan muddo ugu yaraan 1 bil ugu dambeeyna waxay noqdaan shay adag oo sida dhagaxa oo kala taasoo ugu dambeyn laga soo qodo halkaasi waana milixda caadiga ah ee aynu isticmaalno wax soo saarka milixda ee deegaanka Toqoshi ee degmada Saylac waxa ka howlgala shaqaale tiro badan oo muruqmaal ah kuwaas oo ka xoogsada soo saarka milixda hadda waxaanu ku sugannahay deegaanka Toqoshi oo ay ku yaalaan ceelasha ugu tirada badan ay ka soo baxaan milixda la siiyo xoolaha iyo sidoo kale tan bani aadamku ay isticmaalaan haddii aad hore u maqli jirtay beeraha ay wax ka soo go'aan miro ay ka soo baxaan kuwanina macnahan waxay ka dhigan yihiin beeraha milixda waana halka milixda laga beero dad badan waxay isweydiinayaan sidee baa milixda loo beeraa ha yeeshee dadka deegaankani ayaa ereyga ugu habboon ee u isticmaalaan waxay tahay beerta milixda waxaana ay ka dhigan tahay dhammaanba waxyaabaha meeshaasi ka muuqanaya ee milixdu inay tahay in milixda halkan lagu beero iyo qaabka marxaladaha ay marto iyo sidoo kale dadka meeshan ka shaqeeya qaabka ay u hawlgalaan waxaan wax ka weydiin doonaa gudoomiye ku-xigeenka gobolkani Salal Cabdulqaadir Aadan Yuusuf oo halkan igula sugan dadku waxay yaqaanaan beeraha dhinaca midhaha iyo dhulkii dhirta ku taalay laakiin tan ku dheedo inay beero tahay bal dadka u sharax hadda waxaan joognaa beeri Toqoshiyeed waxaan waa beeraha milixdu ka baxdo haddaynu arki jirnay beer ay khudaar ka soo baxdo tan milix baa ka baxda waa geed waa alaabta cadcad darkiis waxaanu naqaanaa beer wax akhtar ka soo baxo de green baan beeraha u naqaanaa meel green ah tan laakiin milix laga beeraa milixda waa la qodaa marka godka la qodo godku wuxuu isku badalaa dhowr marxaladood marka hore biyaha lagu tagaa biyahaas waa biyo soo maaxda marka hore waxay noqdaan casaankaas ay noqdaan haddana muddo isbedelaan xoogaa bil ah ayay ku jirtaa milixdaas ilaa aakhirka intay kala fariistaan ay gunta hoose milix noqoto biyana ay caddaan dusha soo maraan
markaasaa laga soo dhuraa muddadu intee laga diyaar garoobaya ilaa bil iyo 2 bilood marka xagaa kala bil ku dhamaado marka dhulku aad ku leeyahay bil ba ku dhamaata laakiin malaha kala bil 2 bilood say u kala qabowdahay bay u kala horeynayaan waxaa ugu fiican too aad u soo baxda baasho iyo marka roobku doo imika tuqoshi markii hore maalintii waxa ka bixi jiray soo gaadho malaha ka bixi jiray hadda laakiin saamaynta abaaraha bariga ayaa saameyn ku yeelatay milixda inta badan waxa qaadan dadka bariga loo qaadi jiray dadka bariga xoolo dhaqatada qaadan jiray markii xoolo dhaqatadii ay abaar ku dhacday ee xoolihii dhamaadeen daacadu wax ka iibsataa weyn ku yaraatay milixda iibsigeedu waa yaraaday aad buu yaraa hoos buu dhacay marka imika cabasho badan baa taalo dadku nagu saacadaan tuqoshiyo aw qani ahayd oo meel aan waxba u weynahay dadku aad u xamaalan jireen oo cid walba ku nooshay marka saameyn weyn bay abaar ku yeeshay saameyn aad weyn oo markuu roobku daana aad buu soo baxdaa warma la bilaabay ceelashan wax soo saarka milixda wallahi ceelashan markaan dadka daad weydiiyay anigu waxa la yiri waxa la bilaabay qarniyo hore iminka dadku aad buu si kala dhaxleen waa dhaxalkii toddobaadkii tobnaad baa socda nin maanta isagoo beerta anaga la kornay ma jiro awooy ma ka dhaxlay awooy ku dhaxlay waxaan ahayn waa dhaxaltooyo marka waxa tugri waa bilaabay qarniyadii 13 maas la bilaabay oo milixdu laga soo saaray meesha tagala milixdan maaha milix badiyo fadhida maaha waa milix marka dhandhamisid gunta ka macaan oo waxa ku jira biyo macaan oo biyo dhulka kala roobku dacsiiyay iyo ku badaas ku beeray marka milixdan milixda kale ku wanaagsantahay boqolkiiba wanaagsantahay milixdii waa u qaaliyo dadku aad ugu mahadnaqaan bariga hore waxa jirta milix ka timaada meelaha Yamanta ka timaada meel kale ka timaada madaxweynaha la hadaya waa kii milixda ka joojiyay wax wadanka laga soo saari karayo meel kale laga keeni maayo milixda dadku u qaaliyooday oo dadkii milixda qiimo fiican ba laga iibsaday suuq fiican ba heleen markaasna oo suuq markii kala xirey suuq fiican ba heleen wallahi waxyaalo badan baa meeshan u baahan laga qabto wadarka saamil soo tahay de wax walba marka la qabto wuxuu baahan la sii hormariyo milixda waanu haynaa dhulkiina waanu haynaa deegaankiina waa qani laakiin waxaan u baahanahay inaan sii hormarino oo jidkii loo soo mari lahaa loo sameeyo barxadii gaarigu istaagi lahaa waxyaabaha xiisaha leh ee aad ku arkayso degmada Saylac waxa ka mid ah xoolaha qaarkood oo si cajiib ah u foofa gaar ahaan geela iyo ariga iyadoo geela qaarkoodna dhinaca badda u foofaan daawada waxaan ku suganahay koonaha galbeed ee magaalada qadiimiga isla markaasina taariikhiga ah ee Saylac halkan saa ku aragtaan geelani waxa uu daaq tagay dhinaca badda dad badan waxay ka warhayaan geelu iyo horweyntiisuba in dhulka hawdka ah iyo dhulka caleenta leh ee aan badda ahayn ee bariga ah ay daaq u doontaan sida halka idinka muuqatana geelaasi saaka wuxuu soo daaq tagay badda gudaheeda baldaba geelan iyo intuu halka joogayo iyo sidoo u daaqo balaynu ka wareysan Maxamed Cawaaro oo kamid ah dadka magaalada isla markaasina ah wakiil wareedka telefishinka Home Cable oo isagu dhacdadan u soo jooga maalin kasta sidoo kale Baaruud oo isna odayaasha magaalada kamid ah ayaa isna noo warbixin doona aan ku horeeyay Maxamed Cawaaro geelani inagoo arkayno badii galay halkaas uu daaq tagay xoolahan waxa lagu yaqaan inay sida caadiga bariga ay u daaq tagaan maxay tahay mucjisada ku duugan in geelani uu biyahan dhex maro oo deetana badda u daaq tago cabshikaro horta waa su'aal wanaagsan waxa jirta wadiga arkay bankan soo marnay dhirta ku yar geedkan geel cunayna waxa la dhahdaa takhay waa geed xaraad waana geed aad ugu dararaan marka ay dhasho hashu maaragtay oo caano badan laga helo awrku faa'iidooyin fara badan buu geedkan u leeyahay geela sidaa darteed geedkii wuxuu ku dhex yaalaa biyaha badda dhexdooda laakiin geelani cabshikuro iskama galan badda wax ku galaa biqiyaasihi GPS buu wataa waxa GPS ka oo ah hasha ugu weyn ee ugu da'da weyn ama se awrka ugu weyn si aad arkaysay waxay ku galeen line ilaa waxaad arkaysaa line bis daba marayaan linekaas wuxuu eegayaa miisaanka balansiga biyaha meesha degaysay meesha kale awrkaasi markuu ilaa 5 talaabo ka hor ilaa 6 talaabo ayay mid kale daba galaysa sidaas ku galayaan dhamaantood marka waxa leedahay xitaa geeli ba ka maalmo waayo arag u horeeyo meesha u hubiya aad iyo aad waxa taa ka sii daran markay badda soo buuxsamayso awrka ka saaraya oo dareemaya badda soo socdo inay markay meelaha u dhaafto kor u soo socdo uu dareemaya dibadna waxaad arkaysaa waxaan ku tusi doonaa awrkaasoo garaacaya aaranka iyo halaha iyo inta adigu maatida isagu wuxuu u yahay meesha ka saar ka baxale oo ka dareerinaya arkaysaa ta kale waxay arkaysaa haddii degto meeshu geelaasi halkaas uu isdaba taagnaanaya ilaa iyadu dhaqdhaqaaq samayso hadday dareento inay degaysana barta ay joogtay sida miinadoo kale maaragtay la dhahdo dib u noqo dhinac ma laamayse halkaa ay joogto ayay dib uga noqonaysaa markay arkaan hashii oo soo jeesatay neef walba bartu joogu saa uga jeesanaya marka dariiqii ay ka soo galeen dib hadan uga noqonaya waxaan ku tusi doonaa badda fara badan laguma galo raadka waa hal ilin waa hal neef oo kaliya
ayay wagtaa dariiqaas waliba isku dhadhawa waxay siinayaan space ay ku soo kala noqon kartaa baa la siinayaa baarudu inta maxaad ku daraysaa waxaan ku darayaa arrinkaa uu walaalkay leeyahay anigaaba markhaatiya waa hubateen neef qura uunbaa geela gebigiisaba uunbaa maamulaya neefka u dambeeya iyo neefka u horeeyaana wasi waxay kala amar qaadanayaan iyo kolkuu joogsadaba ay wada joogsanayaan kolkuu dhaqaaqo way wada dhaqaaqayaan dariiq kaliyuu geelaasi aguugayaa meel keliyuu ka wada galayaa kolkuu awrku halkaa dareemo hashu ay dareento way isi soo rogaysaa geeliina wuu is wada rogayaa neefka u horeeyuu sugayaayo kolkuu hor maro iyuu dee gebigiisiiba haddana wada daba maraya ma garatay sidaa buu amarkiisii ku dhan yahay geel halka adhiga qaarkoodna la saaro dhirta guudkeeda si halkaasi calafkooda ay uga soo daaqaan meeshaan ka mid ahay wax walba waa barasho waxaraha geedka markay ababaan bil bay ku abadaan bishaa kolkaan sii daynaba geedkaa maraa geedka u shabeelin lacnaa waxarahaabaa daaqa lamana jaro waa mamnuuc waxarahaabaa noo daaqa wuu fiilaa meelaha adigu 15 cisho kolkuu fiilo iyo yaan haddaan leeyahay haddana saaraa inta kalena kuwa kale aan u wareejiyaa weysdaba wareeg marka dadkani oo dhani deegaankan bariislo oo dhan sidaaba isticmaalaa waa ka xooluhu ma garanaysaa waaweyni weytaal xun yihiin labada dhab oo laga sameeyo dumar 10 isla hadaa ku fadhiisato waa lagu sameeyaa deegaanka Lowya Cadde waxa uu ku yaala xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Djibouti waana marin muhiim ah oo ganacsi waxaana halkaasi isaga goosha gaadiidka xamuulka ah ee Djibouti ka soo qaada badeecadaha ganacsi sidoo kale waxa isaga gudba shacabka labada dhinac taliyaha laanta socdaalka ee deegaanka Lowya Cadde gaashaan Fuad Caabi ayaa telefishinka Home Cable waxa uu sharaxay sida ay dadweynaha ugu shaqeeyaan loona hubiyo sharciyada socdaalkooda waa socdaalka gobolka Tale waxaan xuduud la leenahay dalka Itoobiya iyo Djibouti halkan waxaan naga soo galay passenger fara badan dadkaasoo dabad iyo gudaba ka yimaada dad u dhashay Soomaaliland dadkaasi waxaan u xilsaaranaynaa dawaa xuduudda ilaalada xuduudda iyo border control baan nahay shaqo culus baan qaranka u haynaa dadkani waxa weeyaan dadka dhiibanaya baasaboorradooda ee ka yimid xagga Djibouti halka kalena waxa ma ku sii galeeyimka kuwani waa entry kaashishana waa exit checkpointka koowaad waa kan checkpointka labaad waa ka halka waxa fadhiista ciidamada amniga dadkuna halkaas ku nastaan xaaladeeduna waa sida labada gelin shaqada waa ilaa 10 ilaa 9 hadii xagaa gaadhanayada waa 12 laakiin tan qaboobaha waa ilaa 8 9 mas'uuliyiinta iyo taliska xaruntani laanta socdaalka oo uu noo waramay sarkaalka ugu sareeya isla markaasina noo sheegay inay system cusub ay ka hirgeliyeen maanta inoo kulanay Home Cable waxa ma hadlayaan anaguna bilownay qaab cusub oo markii hore isticmaal jiray finger xabad kaliya imikana isticmaalana 10 kaba 10 waa laga soo waxa weyn tiknoolajiyada ama casriga imika socda kolba heerka loo guuro dalka jaarkeenu iyo anaguna guureyna waxay naga caawinaysaa hadhow raadraaxa xogtii baan wadaagaynaa marka wax weeyaan iyo tiknoolajiyada cusub
kolba waxaan u qaadaynaa tallaabo cusub si horumar loo gaaro argagixisada dadyowga kale barxadbadeeda wax kastoo meeshaa gala dhaatadayada hargeysana waa lagala socda gobol oo dhan waa socda interconnection aad baad mahadsantahay